daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe saar, sidoo kale riix gambaleelka si aad ula socoto macluumaadka aan soo gelino janaalka. Maxamed Jaamac waxay isaga iyo qoyskiisa ku nool yihiin caasimadda Oslo ee dalka Norway. Maxamed waxa uu degan yahay guri ku yaala degmada Tøyen ee caasimadda Oslo oo ay leedahay dowladda hoose ee degmada Tøyen Kaamuunka. Maxamed Jaamac iyo dowladda Kaamuunka waxa ay heshiis ku galeen haddii mushaarkiisa uu dhaafo $1,500 bishii in Maxamed uu ka baxo guriga ay dowladdu leedahay ee uu raadsado guri u gaar ah oo ay kiradiisu qaali tahay asaga iyo qoyskiisaba. Bishii u dambeysay dhaqaalaha soo gala Maxamed waxa uu dhaafay intii ay ku heshiiyeen dowladda iyo isaga. Maamulka ayaa la soo xiriiray una sheegay in dhaqaalihiisu uu dhaafay halihii ay ku heshiiyeen, sidaa awgeed uu faarujinayo guriga ay dowladdu leedahay. Intaa kadib Maxamed ayaa dowladda u qoray waraaq cabasho ah si loogu fududeeyo kiiska. Mana sahlano in la helo guri maxaa yeelay waxaa lagu jiraa xilli korona ah. Dowladdu ma aysan ka yeelan wax wada tashi ah kiiska Maxamed. Maamulka ayaa qaatay go'aan ah in Maxamed loo adeegsado xoog loona diro ciidan si loogu soo bixiyo guriga. Askartii ayaa albaabka guriga ka gashay, muran badan iyo buuq badan kadib askartii ayaa ku adkaysatay in ay soo xirto guriga. Caruurtii oo qaarkood hurdayeen waa la soo kiciyay waxaana loo saaray bannaanka oo uu ka dhacaya qabow aad u daran. Qoyskii oo xaaladaas ku sugan waxaa ka war helay gabar deriska ah oo u dhalatay dalka Norwegian. Kadib gabadhii ayaa qisada Facebook ku soo bandhigtay kuna qortay page-keeda. Qisadu waxaa share gareeyay kumanaan qof. Qisada ayaa qabsatay baraha bulshada waxayna dib ugu soo laabatay maamulka oo la kulmay cambaareyn aad u weyn. Sheekada ayaa gaartay heer maamulka laga dalbado is-casilaad degdeg ah. Gabadhii ayaa dadka Norway waxay ka codsatay in loo ururiyo qoyska lacag 50,000 ah, taas oo ah guriga ay kiraysan doonaan. Laakiin saacad kadib lacagtii ayaa dhaaftay intii ay gabadhu u dirtay dadka. Gabadhii ayaa ciwaanka sheekada u beddeshay ilaa 100,000. Durbadiiba waxay sii dhaaftay intii dadka ay u dirtay haddana. Intaa kadib waxay ku qortay ciwaanka guri ha loo iibiyo. 24 saac kadib Maxamed lacagtiisu waxay gaartay 1 milyan. Isagoo jimcihii faqiir ahaa ayuu sabtidiina taajir noqday. Maxamed Jaamac iyo Maryan Xuseen waxay raadinayaan hadeer guri aad u weyn oo iib ah. Sidoo kale dowladda Kaamuunka ayaa la raadinaysa guri iib ah, waxaana la sheegay in mar kale cashuur laga qaadi doonin Maxamed iyo Maryan. Maxamed lacagtiisu hadda waa ay sii socotaa ilaa waxay ku dhawaanaysaa lacag iibin karta 2 guri. Muuqaalkeena maanta waxa uu ka egyahay intaas. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe saar, sidoo riix gambaleelka si aad ula socoto macluumaadka aan soo gelino janaalka.